waxaan doonayaa maanta inaan halka iclaamiyo inaanu qaban doono shirweynaha caymiska qaranka Soomaaliya jiray shirweyne aanu doonayno wixii ka soo baxaya shirweynahaas inuu noqdo shirweynihii badbaadin lahaa dhiigbaxa ku socda ummadda reer Soomaaliland qofku marka uu caymis ama gurigiisa geliyo ama naftiisa geliyo ama gaarigiisa geliyo ama dhulkiisa geliyo wuxuu deganaansho helaya wuxuu u seexanaya nabad qab waxa uu horeeyo ee aanu insha Allah taala ka dulqaadi doonaa wuxuu noqon doonaa caymis ka dulqaadi doonaa wuxuu noqon doonaa culayska maaliyadeed iyo nafeed ee ka yimaada gaadiidka xafiiska hay'adda caymiska qaranka ee magaalada Hargeysa waxaan ka shaacin doonaa arrin muhiim ah oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in badan sugayay oo in badan sababtii hay'addan loo aasaasay ahayd oo ahmiyadda ay u leedahay qaranka iyo ahmiyadda ay u leedahay shacabka reer Soomaaliland iyo ahmiyadda ay u leedahay dawladda Soomaaliland intuba runtii baahi weyn loo qabay marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa warbaahinta qaranka oo noocyadeeda kala duwan haday kuwa dawladda tahay iyo haday kuwa private ka tahayba oo saaka inay warkaa naga tabiyaan aan ugu yeedhnay xafiiskayaga waxaan kale oo aad u salaamayaa soo dhaweynayaa dhammaan inta halka fadhida hareerayga fadhida oo ah odayadii barnaamijka caymiska iyo hay'adda runtii aanu ka wada shaqaynaynay ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdirashiid ku xiga agaasimaha guud Cabdisalaam labada la taliye Dr. Aadan Ismaaciil iyo Dr. Cabdiraxmaan gudoomiyaha shirkadaha gaarka loo leeyahay caymiska gudoomiye Maxamuud iyo gudoomiyaha warbaahinta sahan oo isaguna kamida saaka warbaahinta noo timi Axmed Heelo aad iyo aad baan runtii marka ugu horeysa u salaamaya mar labaadka waxaan doonayaa arrinta muhiimka ah ee aan doonayo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saaka inaan u iclaamiyo waxa weeye sida ogtiin hay'adda caymiska qaranku waa hay'adda ugu muhiimsan marka la eegayo dal dhisan oo tiirarkiisu ay u dhan yihiin haday tahay dhinaca siyaasadda haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay dhinaca publica iyo deganaanshaha ummadda reer Soomaaliland haday tahay dhinaca nabadgelyada iyo security-ga iyo haday tahay dhinaca safety-ga iyo nolosha dad iyo maalba ay ummad meel ku dhaqan ay leedahay ama dal uu leeyahay hay'adda ugu muhiimsan bay kamid tahay muddo 6 sanadood hadda waxa qabanqaabada dhisidda xeer samaynta maxaan ku dhahdaa lagu jiray hay'adda caymiska qaranka inuu caymis yeesho qaranku inuu caymiska qaranku shaqeeyo inuu caymiska qaranku dawladana ka shaqeeyo shacabkana shaqeeyo ayaa la waday maanta oo ah 5tii bishii 8aad 2026 waxa la soo gaadhay inaynu ku soo dhawaano hirgelinta caymiska qaranka iyo bilowgeedii waxaan doonayaa maanta inaan halka iclaamiyo inaanu qaban doono shirweynaha caymiska qaranka Soomaaliland shirweynaha caymiska qaranka Soomaaliland ayaanu waxaanu qabanaynaa insha Allah taala 12 iyo 13 bisha October 2026 waa muddo hadda 2 bilood iyo dhowr casho inaga xigaan waxaanu doonaynaa maadaama aanu jaanta isla helay haddaanu nahay hay'adda caymiska iyo haddaanu nahay shirkadii caymiska bixinayay ee Soomaaliland iyo xukuumaddii Soomaaliland oo runtiina taageeraysa ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo shacabkii reer Soomaaliland oo baahidoodii runtii ay u muuqatay sugayay in arrinta hirgelinta ay dhaqaaqdo iyo amarkaasu
intaas markaanu isla helay waxaanu doonaynaa shirweynaha 2 bilood kadib haddii Ilaahay ka dhigo dhacaya ee shirweyne qarana shirweyne ka duwan shirweynadii hore ee dhici jiray shirweyne aanu doonayno wixii ka soo baxaya shirweynahaas inuu noqdo shirweynihii badbaadin lahaa dhiigbaxa ku socda ummadda reer Somaliland ee ugu horeyso nafaha bini'aadanka oo maalin walba ee lumaya oo ku lumaya accidentno dhacdooyin gubashooyin gawaadhi isjiiday waxyaabo noocaas oo miidhana oo aan isleenahay caymisku qayb weyn uu ka qaadanaya hantidii ummadda oo iyaduna maalin walba lumaysa ama bad ha ku lunto ama beri ha ku lunto waxaad ogtiin maalin walba halkaasaa laga raraa maraakiib xoolo ah maraakiibtaas way degtaa wax la wax caymisay iyo wax la qofka markabka raray ama soo raray alaabtii u soo socotay waxa la wax u nafi ma jiraan waxaan doonaynaa caymiskii badbaadin lahaa ummadaas hantideeda iyo nafta Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa deeq qadaray oo maalin bay baxdaa waxa dhacaya ee aan la celin karin ee ku dhacaya ama accident ku dhaco ama maxaan ku dhaca bareer baa ku dhace ee dhacaya ee dhacdooyinka culayska ka imanaya ummadda ka kor qaadi lahaa waxaan ognahay caymiska qaranku waa tiirka dhaqaalaha iyo xasiloonida ganacsiga ee ummadaha jira ee doonaya mustaqbalka iyo horumarka shirweynaha aanu qabanayno haddii Ilaahay ka dhigo bisha October inagu soo aadan marka laga tago badbaadada nafeed iyo maale uu u leeyahay ummadda reer Somaliland waxa uu u leeyahay reer Somaliland oo aan ahayn wax la iska sheegayo ee ah wax practice lagu arkay adduunyada dawladaha jira ee dhaqan ay practice ku arkeen dhaqaalaha wadanka inuu qaybta ugu adag uu ka qaato caymisku waxaad ogtiin caymisku baananka isaga leh adduunka marka la joogo bildinada la kiraysto iyo maxaan ku dhahdaa rent houseska isaga leh isaga maalgeliya maxaan ku dhahdaa wadamada isaga dhisa isaga damiinta wadamada ganacsigooda inuu isu furmo wadan ilaa wadan isaga damiinta in maraakiib loo raro wadan laga raro wadan kale loo raro isaga damiinta in la kala iibsado lacag dhaqaale malaayiin ku baxaya ama dhaqaale malaayiin ama billions in la kala iibsado waxa damiinta caymiska wax ka jira adduunyada aynaan ahayn waxaynu maanta u baahanahay inaynu doondoonno oo practice lagu arkay caymisku wuxuu ka mid yahay tiirarka horumarineed ee ummadi markay doonayso inay horumarto wuxuu keenaa xasilooni qofka ka bilaabanta qofku marka uu caymis ama gurigiisa geliyo ama naftiisa geliyo ama gaarigiisa geliyo ama dhulkiisa geliyo wuxuu deganaansho helaya wuxuu u seexanayaa nabad qab wuxuu oranayaa wixii Ilaahay qadaray way dhacayaan laakiin waxaanu ka warwareyn wixii soo gaadha inuu bedelkeedii helo ama hantidiisii in birika maalin uu hantideed uu bedelkeedii helo waxay ka mid tahay horumarinta dhaqaale ee ummaduhu ay ku horumareen wuxuu ka mid yahay dhaqaalaha hay'adaha dhaqaalaha ee ummadu ay leeyihiin ugu ballaaran waad ogtihiin 2008 markii la oran jiray recessionka wadamadii recessionku aad u saameeyay waxa ka mid ahaa Mareykanka wixii kale oo shirkada markii waa la joojin kari waayay waxa la yiraahdaa wixii kacaya ha kacaan laakiin shirkadda caymiska markay gaadhay shirkadda ugu weyneed caymiska markii ay gaadhay dawladdu waxay ku qasbanaatay inay billions ay ku bixiso oo ay ku kabto si aanu u kicin aanu caymisku u kicin halkaas uu ka jooga adduunyada caymisku ka jooga horumarka muhiimadda caymiska ee uu leeyahay dhaqaaluhu uu leeyahay nafaha uu leeyahay ummadda dhismaheeda uu leeyahay jiritaanka wadan inuu jiro waxay u baahan tahay maalmo iyo bilo iyo sanadayn la isaga sheekeeyo anu maanta halkan waxaan doonayaa inaan ku cilaamiyo inaanu shirweynaha qabanayno
إنه شروينها سو أنو كو فاينالايز غرينا إنه أو كل ما يستير إنه ومركا وجوه الرساء وحي حير ولها عيمسك وحيرك عيمسك هذا تاي حيركي جديدك هذا تاي حيركي عافيماتك هذا تاي حيركي تريرك iyo dhaqaalaha tijaarada oo maanta xeerarka runtii uu nagu baahida weyn tahay Soomaaliland oo aad ogtihiino dekedena berbera iyo corridorka isku keen xidhaya inaga iyo bariga Afrika oo Itoobiya ugu horeyso dhaqaalaheedu wuxuu taagan yahay oo ganacsigeedu uu taagan yahay inuu caymis helo xeerkii caymiska dhaqaalaha xeer nidaamiyihii caymiska dhaqaalaha ayaanu ku dhameystiraynaa ku soo bandhigaynaa maalgashiyada iyo investorska inoo imanaya ugu soo bandhigaynaa kuweena gudaha localka ugu soo bandhigaynaa waxaanu doonaynaa in Somaliland is aaminto Somaliland la aamino waxaan ku soo bandhigi doonaa xeer nidaamiyayaasha shaqaalaha reer Somaliland caymiskooda caymiska shaqaalaha Somaliland marka waxa soo dhan laga tago waxaanu doonaynaa siyaasadii qaranka ee caymiska iyadana inaan ku soo bandhigno halka waxaanu ku jiray hadda sanad ayaanu aniga iyo tiimkayga ila socday gudoomiye ku xigeenka iyo agaasimaha aanu magacaabanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtiga magacaabay laga joogaa sanadka waxaanu dhisaynay kaabayaasha ay leedahay hay'adda caymiska waxa reeraha fadhiya hadda maanta reeraha fadhiyo halkan jooga dadkii ugu aqoonta badnaa reer Somaliland rag kamid ah Dr. Cabdiraxmaan iyo Dr. Aadan waa la taliyayaasha hay'adda caymiska waxaan u qaadanay aqoonta ay leeyihiin inay ku gaarsiiyaan caymiska Somaliland inuu noqdo caymis shaqeeya oo ummadda reer Somaliland dhexdeeda noqda hay'ad maxaan ku idhaahdaa faa'iido keenta waxaan u sheegayaa ummadda reer Somaliland caymisku ma noqon doono culays maaliyadeed oo soo fuula oo lagu soo kordhiyo wuxuu noqon doonaa mid ka dulqaada culays maaliyadeed oo maanta haysata mujtamaca reer Somaliland sida sababaha uga dulqaadayo waanu sharixi doonaa laakiin waxa ugu horeysa sababta ugu horeysa uga dulqaadaya ee maanta reer Somaliland gobol ilaa gobol mid walba ay la daaladhacayaan waxa kamid ah gawaadhida ama dad ha jeedaan ama ha ka dhacaan dad ha ka dhaco ama iyaguba ha dhacaan oo gawaadhidu ha dhacdo gawaadhida culayska ka yimaada ee mago ee dhaawac la dhakhaatiirta ku yaala ee hanti ku burburta waxa ugu horeeya ee aanu insha Allah taala ka dulqaadi doonaa wuxuu noqon doonaa macaymis ka dulqaadi doonaa wuxuu noqon doonaa culayska maaliyadeed iyo nafeed ee ka yimaada gaadiidka inta kalena waxay noqon doontaa culaysyada kale haday tahay ka dhaqaalaha oo maanta dhaqaalaheennii aan haru idin ku sheegay oo ugu horeeyo corridorka iyo dekedda maraakiibta dekedda ku soo xidhanaysa waxaynu u baahanahay inaynu caymino dad kale oo aan reer Somaliland ahayn ayaa caymiskeena maanta ku shaqaysta oo qaata maraakiibta dekedda timaada iyo diyaaradaha ina dul maraan cid walba caymis bay ku jirtaa cid baa ka qaadata caymiska haddii maanta marka dekedeena ku dego inaga qashin iyo saliid inuu inagu daadiyo mooyaane wax kale oo dhibaato inoo geysto mooyaane waxaynu ka faa'iideynaa ma jiro hantideena ku lunta iyo isagoo laakiin ragga wata waa laga qaadayaa oo meel baa la geynayaa ninkii lahaana lacagtiisa cid baa siinaysa inaguna waxaynu ka faa'iidnaa qori wax weeye alaabtu inay inoo keenaan ama ay dadkeena inoo soo qaadaan diyaaradaha iyo maraakiibtaas laakiin waxaan doonaynaa sida adduunyadu u kala faa'iido businesska iyo tijaaradda hadday tahay taa badda maraysa hadday tahay ta gawaadhida wadada maraysa hadday tahay taa diyaaradaha airportada ku soo degaysa inuu ganacsigaas waxaan ugu baaqayaa tijaarta iyo ganacsatada reer Somaliland ama kuwa bad ka ganacsada ha noqdaan ama kuwa bari ka ganacsada ha noqdaan inay dhisaan oo ka qayb qaataan dhisidda iyo horumarinta caymiska kaasoo ku xidhan tahay wax badan
oo ganacsiga reer Somaliland uu maanta u baahan yahay inuu adduunyada ku galo oo u baahannahay inaynu ku xidhanno cidda aynu hareeraha inaga xigtay in la noolahay oo ugu horeyso dawladaha bariga Afrika iyo inaynu u shaqeyno oo ganacsigeenu u adeego bariga Afrika uu adeego ganacsatada reer Somaliland baan ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waa garab taagan yahay caymiska wuu ku ballan qaaday annagana amar buu nagu siiyay oo na faray inaanu wax alla wixii caymiska uu ku hirgalayo aanu fududayno waxaan insha Allah taala rajaynayaa maalinta shirka oo 12 iyo 13 shirkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu joogayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu kaga dhawaaqayaa bilowga caymiska gaadiidka jamhuuriyadda Somaliland maalinta wixii ka dambeeya madaxweynuhu ku dhawaaqona waxay noqonaysaa gaadiidka jamhuuriyadda Somaliland caymis galaan culayskaasna uu ka dego reer Somaliland nin walba soo gaarigiisa wata oo kalsooni qaba uu ku noolaado jamhuuriyadda Somaliland iyo hareeraheeda isaga goosho inta kale ee caymisna waxay raaci doonaan insha Allah taala iyaguna baaqaas waynu iswaraysan doonaa labada biloodna waxaan rajaynayaa reer Somaliland goboladooda oo dhan waanu mari doonaa wacyigelinteeda iyo qabanqaabadeeda iyo shirka qabanqaabadiisa ayaanu ka wadi doonaa waxa nala shaqeynaya oo nala wada oo caymiska nala wada culimada reer Somaliland waxa nala wada oo nala shaqeynaya madax dhaqameedka salaadiinta iyo uqaasha reer Somaliland waxa nala shaqeynaya oo nala wada na garab taagan dawladda waxa nala garab taagan oo nala wada oo aanu caymiska ku tiirsanahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horeeyaan ciidanka taraafikada iyo booliska intaasuba hareeraha iyaga taagan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta kale ee reer Somaliland waxaan jecelahay hay'adda caymisku muhiimadda ay leedahay iyo qaranka muhiimadda ay u leedahay inay nala fahmaan inay sida madaxweynaha iyo dawladdu diyaarka ugu tahay ugu diyaar garoobaan hay'adaha dawladda ee kala duwan oo dhanna insha Allah taala waxaanu rajaynaynaa inay mid waliba dhinaca halkeeda ay message-keeda ka qaadi doonto ayna nasgaay garab taagi doonaan una caymiskuna insha Allah taala saa ku dhaqaaqi doono aynuna heli doono dhinaca inaga reer Somaliland haday tahay publigeena haday tahay xukuumadeena iyo dhinaca ummadaha kale ee inala macaamilaa inagu xidhaba aynu heli doono insha Allah taala nafis maxaan ku idhaahdaa iyo kalsooni aynu insha Allah taala kaga shaqeysano dalkeena aad iyo aad baan idin salaamaya aad iyo aad ugu mahadsantihiin insha Allah taala kala fogaan mayno maalin walba wada joogeynaa labada biloodna qabanqaabada waa ku wada jireynaa shirkuna wuxuu ka dhici doonaa hoteelka Damal insha Allah taala 12 iyo 13 cid kasta oo shirka doonaysa maxaan ku idhaahdaa inaanu war ka siino halkan aanu insha Allah ku soo dhaweynayna cid kasta oo reer Somaliland ama business-keeda ha noqoto ama maxaan ku idhaahdaa ciddii kale ee danaynaysa ha noqotee waxaanu ka siin doonaa qayb ay ku yeeshaan shirka iyo meel ay ku yeeshaan ay ku soo bandhigaan maxaan ku idhaahdaa baahiyaha ay qabaan caymis iyo meel ay magaranaysaa mujtamaca ay ugu waramaan waxaanuna ayna ka heli doonaan war waafiyo waxaanu keeni doonaa ilaa 7 dawladood ayaanu ka soo casuumi doonaa dad khubaro ah Mareykanka kamida South Africa kamida East Africa oo Kenya iyo Nairobi iyo Ethiopia baa kamida Malaysia kamida Dubai baa kamida waxaanu keeni doonaa dad khubaro ah oo shirka insha Allah taala caymiska iyo wuxuu yahay ummadda reer Somaliland aynu baahiya aynu qabno si fiican inooga magaranaysa maadaama uu yahay wax la inooga aqoon badan yahay adduunyada kale ay aad u ka socdo oo practice ahaan laynaga horeeyo cid inooga si fiican inooga warranta cid si fiican uga warbixisa cid wixii inaga dhiman ee shuruuca inaga caawisa intaasoo dhammaan insha Allah taala shirka ka soo qayb gali doona si aan idin sheegay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland baa shirka insha Allah taala furi doona wuxuuna noqon doonaa shir insha Allah Somaliland ay wax badan oo guuli uga soo baxaan aad iyo aad baan idin